عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. xadiidka saddexaad dhidibada ama tiirarka islaamka waxaa laga wariyey Abu Cabdiraxmaan Cabdullaahi ibn Cumar ibn al-Khadaab allaha ka raali noqdee inuu yidhi: waxaan maqlay rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam oo leh: waxaa lagu dhisay islaamka 5 tiir oo kale ah. 1. Qiridda in ilaahay jirin xaq lagu caabudo alle ma ahe, nebi maxamedna yahay rasuulka alle. 2. Oogidda salaada. 3. Bixinta sakada. Soomida bisha Ramadaan. 5. Gudashada xajka.